barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi way wehelinayaan taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay soo kormeereen seerayaal laga sameeyay duleedka degmada Oog kuwaas oo cabasho ballaaran ka soo jeediyeen kana muujiyeen guud ahaan dadweynaha ku dhaqan degmada Oog. barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo mas'uuliyiinta kale oo horkacayay waxay halkaasi warbixino kala duwan kaga dhageysteen maayir ku-xigeenka degmada Oog Cabdi Iidan Jaamac iyo suduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar Farxaan Salabaan Gaas. waxaanu sameynay kormeel annagoo survey hore sameynay ka degmi ahaan annagoo maamulka degmada iyo awqaasha degmada markii qayla ka timid xaqi deegaanka waxaanu sameynay survey ballaaran waxaanu soo aragnay dhul badan oo dhagax la dhigay ama la ooday ama waxa weeyaan xorfad laga qoday marka waxaanu jaangooyin baan ku sameynay 3 kilomitir wixii ka baxsan inay yihiin daaqeen wixii 3 kilomitir inay ka baxsan waa daaqeen baanu goynay waana la baabiinaya wixii dhagax yaala iyo wixii xorfada waxaan kormeer ku soo marnay iyadoo gudoomiyaha gobolka noo hogaaminayo iyo taliyaha qaybta iyo maayirka degmada iyo barasaab ku-xigeenku kormeer aan ku soo marnay deegaamada Oog oo dhan marka deegaanka kormeerkiisa waanu soo dhamaynay. sidoo kale halkaasi waxa ka hadlay barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Gaashaan la dhexe Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmayre waxayna ka warameen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyagoo sidoo kalena halkaasi ka cadeeyay inaanay haba yaraatee ogolaan doonin in deegaamadaasi dhul daaqeynka ku fiican laga sameeyo seerayaal sharci darro ah. dhul badan baanu soo marnay iyadoo uu hogaaminaya barasaabka gobolka Saraar dhulka oo lagaga cabanayo in loo soo qaatay sharciyaado annagoo ka duulayna arrimaha nabadgelyada annagoo eegayna xawaalaha ka jira gobollada inala deriska kolley suurtagal noqon mayso in dhulka la iska oodooto dhulku waa dhul degaana waa dhulkii xooluhu daaqi jireen inta aanu saaka maraynay ee calaamadaha lagu dhigayay waxna lagama qaban karo ilaa barasaabka iyo wasaaradaha ku shaqo leh lala kulmo meel wax laga qaban karaa ma jirto. maanta waxaanu kormeer ku soo marnay deegaamada dhul daaqeynka ah ama cabashadu ka soo yeedhay ay ka soo cawdeen odayaasha dhaqanka ee degmada Oog iyo maamulka oo wada socda runtii marka dhulkaanu soo aragnay ama wax dhagax la dhigay ama calaamad loo sameeyay ama dhul wax laga qabtay wuu jiraa sideedaba dhulku marka hore uu kala astaysan yahay dhul waa xoolo daaqeen dhulna waa dhul beereed dhulka dhul daaqeenka ah marka la doonayo cidi inay beer ka samaysato meeshaas waxay u baahan tahay hubin badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in dhul daaqeenka la ilaaliyo oo maadaama uu gobolku yahay gobol caan ku ah xoolaha nool in la tixgeliyo xoolaha nool baa meesha taala waxa meesha yaala cabashadii markaanu soo eegnay waxa weeyaan waxaad moodaa inay sansaan nabadgelyada wax yeelaysa ay noo muuqato wax walbana nabadgelyada nagaga muhiimsan wixii wax lagu keenaya ma ogolin marka hore marka labaad dhul daaqeynka waxay inoo ahayd in dhul daaqeyn loo ilaaliyo oo xoolaha loo ilaaliyo dhulka dhul daaqeynka ah ee aanu aragnay in wax laga qabto runtii waxyaabo fara badan oo suurtagal ahayn baanu soo aragnay socono mayso in muxuu ahaayey wax dhul daaqeyn ah dee si fudud beer loogu bedelo maxaa yeelay bulshada iskaga hor imanaysa markaa waxaan muxuu ahaayey farayaa dadka in aanay dhulka ama iska oodan ama iska qodan ama berkad ka qodin ama aanay waxba ka qaban oo ay ama beer ula jeedaan ama magaalo ula jeedaan waxaas waa waxyaabaha ay wax ka dhacaan laga bilaabo maantana annagu wax dhul daaqeen baanu dee ka mas'uulnahay dhul beereed kama mas'uulihin dhul daaqeenka sidiisaan dhul daaqeen ugu ilaalinaynaa. Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Aynaba.